xildhibaan cali diiriye ducaale waa coday xildhibaan cali maxamed jaamac jibriil waa coday xildhibaan daahir maxamed cumar xildhibaan faarax jaamac cabdicasiis goordhow gudaha magaalada laascaanood ee maamulka curdunka ah waqooyi bari waxaa ka bilaabanaysa doorashada xilka ugu sareeya maamulkaasi holka doorashada ka bilaabanaysa xilligan waxaa ku sugan mas'uuliyiin ka socda dawladda federaalka Soomaaliya siyaasiyiin iyo waliba qaar ka mid ah wadamada taageera Soomaaliya waxaa xilligan socota qabaqaabadii ugu dambeysay kaasoo ku aadan doorashada xilka ugu sareeya maamulkaasi gabiyahanba waxa aad loo sugay amniga halka uu doorashada ka socoto sidoo kale holka waxaa ku sugan mas'uuliyiin ka socda dawladda federaalka Soomaaliya kaasoo hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya xilka madaxtinimada maamulkaasi xilligan waxa uu sharcan mas'uuliyiin miisaan weyn ku leh siyaasadda dalka hogaamiyihii kumeel gaarka ahaa ee maamulka waqooyi bari Cabdiqaadir Fardhiye ayaa ka mid ah mas'uuliyiinta xilligan u taagan xilka madaxtinimada maamulkaasi holka ka bilaabanaysa doorashada xilka madaxtinimada maamulkaasi ayaa xilligan waxa ku sugan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya xildhibaano wasiiro oo doorashadaasi goobjoog ka noqon doona dhawaan gudaha magaalada laascaanood ee maamulkaasi waxaa ka dhacday doorasho guddoonka sare ee baarlamaanka waxaana ugu dambeyntii ku guuleystay Dr. Aadan Cabdullaahi Ow Cali waxaana ku guuleystay inuu noqdo gudoomiyaha golaha wakiilada ee maamulka waqooyi bari balse ilaa hadda lama saadaalin karo cidda sida rasmi ah ugu guuleysanayso xilka ugu sareysa ee maamulka waqooyi bari balse musharaxiintani ayaa maalmihii ugu dambeeyay gudaha deegaanada waqooyi bari waxay ka wadeen abaabulka ugu dambeeyay taasoo shacabka reer waqooyi bari u soo bandhigayeen waxqabadkooda balse saake halka doorashada ka socota iyo amnigeeda waxa la wareegeen ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya oo goor hore halkaas la geeyay iyo waliba ciidamo ka tirsan kuwa maamulka waqooyi bari balse wuxuu warar ku soo kordhay doorashada xilligan ka bilaawatay gudaha magaalada laascaanood waqooyi bari wararkeena iyo waliba barnaamijyada xiga ayaad kaga bogan doontaan haddii alla awoodo